bulshada Soomaaliyeed saaxiibayaal isoo qiimo kasta aad joogtaan waxaan magacayga waa Nisa Xasan Fale waxaad arki jirtaan anoo barnaamijyo wada oo banaanka sheega duuba oo cagaarka aad u jeclaa duuba maanta wayaan la jooga waa macnaha sadar muuqda su'aal mari Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo ku magacdeed abwaanuhu ayaan maanta nasiib u yeeshay la kulmo oo walaalkay ah xafiiska aan joogno kuna soo arkaysan waa wadanka Turkiya magaalada Ankara waxa xafiiska guuleedka yartistay waa ma sha Allah waxa weeye hay fartoogan waxa weeye fartoog ganacsi sharaf leh way ku soo dhawaada Cabdiraxmaan والله Cabdiraxmaan horta sharaf iyo tamaantina kula joogo waan kulanna maantay aniga walaalkay waxaan ku aqoon jiray murtidaada iyo abwaanimadaada iyo ma sha Allah waan ogahay qofka aad tahay inuu qof yaqaan baan ummadda dhan ay ku taqaanay inta badan waan garanayaa Cabdiraxmaan marka inkastoo aan maanta barnaamijka ku soo talagalin laakiin anu marad adigu ah barnaamijka diyaarsan marka Cabdiraxmaan waan ku salaamay walaalkay وكذا والله abwaan Soomaaliyeed waxaan marka Cabdiraxmaan igu soo yara dhacday gabayadaadi iyo heesahaagi iyo waa jacayl badan laakiin Cabdiraxmaan wuxuu jacayl iga wareej way xoogaa oday baan laakiin lagama tuqo baanka laakiin xagga wadanimada Cabdiraxmaan horta adugu ma waxa kan macaarib samxaa والله أنا وهرت سياسة شغل بكمله هي ونن هلا أبو الصوماليات أنا هاي يعني نن كم مشغولة غير كمركز أما جروب كوطن كمعمولة ما هي حلك إسارة وحنا من سنة إنه تكوي كان عروسي هاي أو من الصومالي أنا هاي صومال نمطنا الدولة نمط كل شيء يا وحوي وتدك شعب كوي هي لقيتنا يا دولة وناك يا واحد صو وناك يعني نفطر أي دلك القرآن markaan wadani baan ahay xisbiga ama gruubka markaa wadanka maamulana wax yani inaan ku mashquulo xogaa maskaxdeeda way ka weyn tahay ma sha Allah yani kuma mashquulo marka wadanka inuu horumar gaaro baa muhiim yahay wadani baan sax ma sha Allah Soomaalidu markay maqlaan wadani maanay waxay ku leeyihiin dadka markaas waxay focus ka saaraan madaxda maanta farmaajo ayaa shalay Xasan Sheikh Bahani ka hor Sheekh Shariif Bahani أنا واحد ذكر فنان وقت ما يبغون ما يوم هذا أبغى أشوف ترى هو حلال علي أنا هو لكن هذا ذكر وقت المرتيرو مثلا هفتي أو هاي قفر بو تذكر حلفة طور كقصر وبعدين واجب الدافع تذكر يتذكر كتنحمين ما كان نعم هذا كان وجه كذا شيء نعم شخص كستا حلفة صار نعم سدا سوي من كم لحظة هنا أصل ضل كمال هادو حتى دبعي هاي ودبادي هاي وحاول نعمو على ذاي أنا كحلم أسرع نعم سدا سوية والله المعان وضن غف كستا حلبا كسارن حل كي مركا إسارن هو كوني هنا كون مشغوله حسب فلونيد أما مارت يدد أريجيال نوع مركا أصل احتوية شوجة أما ممكن نوع هنا كون مشغوله مسؤولية إسارن هو كون تهي غف كستا صومالي وعن كل الدردار ما إنه حل استساره قبيل يا قبيلة يسكن مشغول وكحروله وكفكر سدي هرمر وضنك يسوق جار لها هتوصل وضنك وحتى ركلنا إنه ريبتي سكدا يا تليس ما شاء الله تلك وين الدقة تلك هو يسكت لين يرتب إلى من هو الناطق وي دار الدرجلية عشرة دي أفرحة في السنة ما شاء الله بل ما أنت أمر نحكي عن سنة يا بل أبو النور أنت بالوضع الصومالية يودهان وسلام يا ملك سوء شوغان دافع عالمك سجار وحنا سلام يا بعض فنك يسوغان الصومالية waxaan uga tacsiyeynaya geerida ku timid fanaankii weynaa Cabdi Tahliil Warsame Allah yarxamo oo xarku geeriyo magaalada Muqdisho naftayda iyo dhammaan bahda fanka iyo suugaanta waa uga tacsiyeynaya inta kadib bal maansa yar oo aan uga hadlay waxa la yiraahdo sooca Soomaaliya hadaan aan dhexdan isku hayno ayaan doonayaa maanta in halkaan in kula wadaago maansadaas waxay leedahay dadka Soomaaliyeed ee waliba aan ku tilmaami karo in hal doorkii iyo dheergaradkii Soomaaliyeed inay yihiin يعني حقدرة لقى قلي وهي هاي بسرعة بوسمة أيام كهذا أنا وأفكودي درين كود كهذا ما صدق واحد هذا يقف ضدك كم إذا أيام قرنك سنة يوضدك يسي أو حقري لك يعني لقرنك سنة وحولي هاي الله إيواناتيو أبور وعن إيجابيجو المه النبي آدم يقوتك حوان وهو أبتلس بان ليه أنا إسقو كلا أحد كحقيرة هي سواعة إن أنا اللهين أنا أوجد إجسار يو
afkaar jaahiliyo oo aqligu u diidayo anaaniya lama rabee inaan kaa liito ood adigu iga fiican tahay aayaadka qur-aanka iyo axaadiistaba ka keen ogow isla weynankuna ibliis waa kii dhunsho isagoo jannadii ku jira awoodda intuu isdhiday ilaahay la doodayo oo irida laga saarayo albaabadii laga xidhay ilaah qof rumaysan iyo udgoonow rasuulkii oo shahaadanahayo oogaya salaadahoo islaama ayaan ahe anoon ka itaal yarayn aqoonna in doora dheer axadka i faquuqayo oo isirka igu caayayo oo ummadda iga saarayo afkaa qoyan loo hadliyo erayo deelqaafahoo ijaafaa lama rabee eed weyn baad iga gashay ayaanta qiyaamo iyo intaan aakhiro la tegin allow yaa kugu yaraa istaaqfurlayso oo ilaahay u toobadkeen ogow isla weynankuna ibliis waa kii dhunsho isagoo jannadii ku jira awoodda intuu isdhiday ilaahay la doodayo oo iridda laga saarayo oo albaabada laga xidhay maasadaas ayaan maanta idinla wadaagaya ummadda Soomaaliya. maasha allah afkaaga aan lagu qabay taas waan kaa filayay wax ka badan ba laakiin waan isku soo noqon doonaa abwaan maasha allah laba waxaan rabaa su-aalood oo kaleeta ayaan tay horta cabdiraxmaan abwaan waxaa la yidhahdaa horta abwaan waa kuma abwaan run ahaantii Soomaalidu sida hadda ay u adeegsato iyo wixii loo aqoon jiray aad bay u kala duwan yihiin abwaan waxaa la dhihi jiray qofka waaye aragga ama adduunku yaqaan qofka waaye aragga da-deediina jira gugeediina jira garaadkeediina leh oo wax badan soo joogay haddana caaqilka oo xilliga arrintu ay cakiranto oo isku dhalaasho ur u bixiyo oo hadal taariikhiyana reeba tusaale yacni laba beelood oo islaynaysa ayaa nin u garqaybiyey wuxuu dareemay labadii qolo u garqaybinayo geedka hoostiisa ugu garqaybinayay qolo ka mid ah inay xoogaa nabadda aysan raalli ka ahayn marka mahmaahuu reebo wixii maslaxa jaban mayd baa hoos yaal waxaa ka mid ah siyaad dhariyo dhooba ninkii la dhihi jiray oo yiri hashumaankaga gadaya masaar bay lido yacni hadallada noocaasa walow hadday doonaan hadalladu yaysan ba ahaan maaragtay yaysan miisaan lahaan oo aysan ahaan suugaantu waxay u qaybsantaa tix iyo tiraab tix inay tahay qasamaan laakiin hadal murtilo oo taariikhda gala oo halku dheg noqdo qofku hadduu reebo abwaan dadkaasaa la dhihi jira khasabna maaha inuu gabyaaye laakiin hadda qof kasta oo curiye ah ama mu'alif ah ama yacni eray sameeye ah hadda abwaan bay Soomaalidu ugu yeelaan indhagar waa indhagar exactly indhagar marka cabdiraxmaan waxaan arkay markii adduunka loo fiirsho hadda wadamada aan ku noolnahay qofka hal abuurkani waa ka sarreeyaa xataa madaxweynuhu ka sarreeya waa qof maaragtay aad iyo aad loo shaqo bulshadeenna waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis marka ka hadlayo inay yidhahdaan war waa madaxa laga galo qofkaas maxaa kale ma taas la yaab ma laho hadda kahor baa waxaa la yidhi laba nin baa isku timid oo mid madaxa ku socda iska sheeka xariiro ma ahan wax yacni xaqiiq ku salaysan laba nin oo midna madaxa ku socdo midna majaha ku socda isku timid bal marka kii madaxa ku socday kii majaha ku socda wuxuu yidhi nin madaxa see ugu socotaa soo maskaxda kaa daadamayso markaasna wuxuu yidhi bal waxa ku socotaa miyaan suurtagal miyaysan wax kale kaa daataan hadda meeshaan kama sheegi karo dee anshax baa loo baahan yahay marka dee adduunka dhan baa sidaa isugu wareersan marka waxaa la yidhahaa maamaaba kasoo baxay la yidhaahdo nin madaxa ku socda iyo nin majaha ku socda waa isku diinaa la yaab male marka waa wax iska caadi waxaan kaloo maqlay cabdiraxmaan waxaa la yidhi nin odaya oo reer baadiya oo wax soddon ari baxaraysan oo meel baadiya joogaamee waxaa la yidhi hilbaha wax wiilta cunahaya annagu adaan waa wiilta laakiin cuntada oo samay ayuu waxaa la yidhi madaxa il kala baxay feenanaya markaasuu dayaarad korkiisa ka arkay markaasuu yidhi tolla-ayo bal markuu dhaalmaayo da wuxuu dhaxasana badana weydi marka anigu waxaan ba idhahdaa qofka bini aadankaahi markaas waxuusan gaarin qofka walaalkaaho gaarin ayaa jira fanku abwaanimada kala jirta fanku dabcanna waa waxa orta abwaan iyo fan iyo waxaas lama kala waayo laakiin waxaan rabaa inaan kusoo gabagabay cabdiraxmaan waxaa joognaa maanta dal turkiya aduguna UK baa ka duwan aniguna Sweden baa ka duwan sax muddo ayaan joognay waxyaaba jira awgeed xanuunada iyo nacamdana aan u nimid iyo maxaa dhihi lahayd xafiiskan oo ka doona maanta aan joogno joogidda aan meesha joogno sababtaan u joognay meeshaan waxaan ku go'doonnay waddanka Turkiga alxamdulilah ilaahay waa nagu ammaansaday ilaahay maslaxadeena iyo meeshii noo roon isaga aan naga og anigu safar baan ahaa waxaan usii socday halkaa iyo Kenya u socday meeshaan ku bad xirmay muddo hadda waxaan joogaa 3 bilood ku dhow alxamdulilah ilaahay waa igu ammaansaday dhammaanteedna ilaahay waa nagu ammaansaday cid Soomaaliya hadda ku waxyeelowdo aan garanaynaa ma jirto ilaahay baan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala
xigmad rabbaani ah ku jirtay kulli ilaahay dhibaato inuu na soo dhaafinayay ayaa laga yaabaayo sidaan ay khayr noo ahayd waana noo ahayd xafiiskan haddaan usoo laabto guuleed real estate waa xafiis run ahaantii ganacsi oo dad akhyaar oo aada u wanaagsan oo soo dhaweyn leh oo soomaalinimadu ay ku dheer tahay oo waxtariyay ay maaragtay maamulayaal ka yihiin marka ummadda soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaynaa cid kasta oo halkan ganacsi ka danaynaysa ama doonaysa inay guryo ka dhisato waddamadaas gaalada ilmahooda kala soo cararaan in ay xafiiskan la soo xiriiraan waa dad aada u soo dhaweyn badan oo aada u wanaagsan oo run ahaantii aan dhihi karno shaqada ay qabtaan aada bay maaragtay wax ku ool cabdiraxmaan maxaa baranaysaa bulshada soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed waxaan ku leeyahay soomaalinimadu wax sahlan maahan yacni dowladnimada waxaa la yidhaahdaa soomaaliya meel kastoo aan joogno waxaa arkaysaa 24 saac waxaan arkaa baraha bulshada dad soomaaliyeed oo ka hadlaya oo midba mid uu u jawaabayo midba mid ku dhagan yahay adduunka cid nala mid ahay ma jirto soomaalinimada yacni waa wax aada u weyn yaa si khalada loo fahmin soomaalinimada iyo qarannimada iyo beelbeeshu waa kala laba ilaahay baa beelbeel naga dhigay wax dhiba ma leh inaan isku aqoonsano darteed laakiin khaladka loo isticmaalayo ha laga joojiyaan leeyahay soomaalinimadu waxa weyn ha noqoto iyo qarannimadu maasha allah walaalkeen cameramanka maxaanu leenahay thank you abshir waa mahadsan tahay bashiir abshir waa mahadsan tahay asna kanada nooga yimid waa salaamayna walaalkeen maxay ahayd waa Mr. Xasan Waxtar dhahaysa Soomaali Maxamedey maalin wanaagsan habeen wanaagsan subax wanaagsan wada wanaagsan ma leenahay. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.